الرحمن الرحيم waad aragtaan waxa weeye maayirka qura ma ahay waa deegaankii tog dheer burco ayaa inoo yimi waxay u yimaadeen golaha waxa sidaad ogtiin waxa yaal xeer 23 oo ka hadlaya gobolada waxay ka cabanayaan waxa weeye waa cashuuro iyo wax la mida wixii ay ka cabanayeen waa noo soo gudbiyeen xeerkiina gacanta lagu hayaa marka taasaanu ka wada hadlanay waxaanu ka wada hadlanay burco abaaraha xaaladda ka jirta burco iyo dalka oo dhanba marka xeerkana waa xeer gobolada oo dhana marka wixii gobol kasta baahidiisa si gooniya loo eegayaa wax wada sibanna waa loo sameeyaa haddii ilaahay yiraahdo gudoomiye marka cabashadani muddo badan bay soo taagneed magaalooyin kala cabanayaan burcaba ahay oo ka cabanaya arintaas xeerkaas ma bedelaysa xeerku waa xeer cusub weeye hore u yaal amandad baa lagu sameeyey goluhu hor imanaya waana laga qayb geliyey gobolladoo dhan maayiradoo dhan waa wada joogeen waa laga qayb geliyey waxaanu doonaynaa xeer u dhaxa gobolladoo dhan oo cid walba xaq ay leeyihiin siinaya ayaanu ka wada hadlanay waana loo wada sameeyo gobolladooda xaq bay wada leeyihiin in wax siman loo sameeyo marka waxaan haddii ilaahay yiraahdo xeer gobolladoo dhan anfaca baan soo saaray haddii ilaahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi waaba intaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صحافة marka hore waa salaamayna dhamaantiin waxaan u nimi halkan kulli dan waxa loo yahay xeerka la yiraahdo xeer 23 ama xeer 2000 in muddo cabashadiisu joogtay meelaha qaarkood oo gobolada qaarkood ama degmooyinka qaarkood ka cabanayeen sidaa uga madaxweynaha qaranka ugu mahadnaqaynayo ciidii kale soo abaabushay haddii tay wasaaradda dakhiliga iyo haddii ay tahay maartay guddigii loo xil saaray dib u eegista xeerka cabashadu ka timi gudoomiyaha guddida Balaaki xildhibaan Balaaki iyo raggii kale xeerkaas soo diyaariyay ayagana oo mahadnaqeen ujeedadeedu waxay ahayd inaanu ku urgallo cabatankii xeerka aan ka keenay oo maanta golaha wakiilada hor yaala iyo wixii laga bedelay oo aan dhowr jeer iska aragnay maayirada dalka wasaaradda dakhiliga iyo dhammaan wasaaradaha shaqadu naga dhaxayso gudoomiyaha waa la kulannay gudoomiyaha guddiga nabadgelyada oo iminkana gacanta ku hay arrimaha gudaha iyo nabadgelyada oo iminkana gacanta ku haysa xeerka Balaaki xildhibaankuna waa nala fadhiyey xildhibaano kale waa nala joogeen waxaanu ka cabanaynay horaan yaanu soo gudbinay qoraal la waa ku gudbinay ayaguna gacanta lagu hayaa xeerkii midna waa lagu sameeynaya waxay noo ballan qaadeen inaanu anagu gobolada kale wax ma dheerin degmooyinka kale wax ma dheerin hawl kale oo soo kordhayna way jirtaa oo aan madaxweynaha qaranka ugu mahadnaqayno oo ah lacagayo ka maqnaa dawladaha hoose ee Soomaaliland dhamaantood oo dib loogu soo celiyay muxuu ahay gacanta dawladda hoose dib loogu soo celiyay taana qaybinteeda ay u taalo guddidan xildhibaan Balaaki madaxda u yahay waxyaabahaas oo dhan baan ka wada hadalay abaaraha guud iyo dalka iyo degmadaanu ka nimi iyo gobolkaanu ka nimi abaaraha iyo sida ay maartay u saameeyeen baan ka wada hadalay waxaas oo dhan waxaanu ka gaadhnay wixii warbixinaan sideen oo u dhiibnay ayaguna wixii hayeen waa noo dhiibay heshiiskaygu waxa weeye kaliya xildhibaanada next week in la soo dhigaa laga yaabo xeerka golaha wakiilada degmooyinka oo dhan waxay ka filanayaan wax ku filan oo u qalma oo xaqooda inay ka helaan xeerka la xeer 2000 iyo xeer 23 aad iyo aad baa mahadsantahay bulshadu si u fahanto maaya waxyaabaad ka cabanaysaan ee cabashada gudbisay maxay waxaas cabashanaga noo gaara maaha oo degmada burco u gaara maaha laba dhinac bay noqonaysaa mid weeyaan waxay jirtay lacagayoga cashuuraha ee dawladaha hoose dawladda dhexe u qabato oo 50% kamida waqtigii madaxweyne Riyaale loo gooyay doorashadii
oo sidii dowladaha hoose uga maqnayd haddana uu madaxweynaha qaranku muuse biixi cabdi dib noogu soo celiyey ugu mahadnaqayna mid waa taa midna waxa weeye qaybsiga cashuuraha dowladda dhexe ay dowladaha hoose u qabato sidii degmooyinka loogu qaybin lahaa sida ku qoran xeerka 23ga qodobka 89aad oo ah in lagu qaybsado muxuu ahaa cashuurahaas dowladda dhexe soo celiso saddex wax distance ama masaaxada degmadaasi ay ku taalo wax soo saarka ay soo saarto populationka waxyaabaha lagu qaybsado labada qodob baan ka wada hadlaynay labada qodobna waa isla qaadanay waxaan noo ballan qaadeen in aanu heli doono wixii aan xaq u leenahay laba lacag iyo taas imika madaxweynaha qaranku soo celiyay waa lacagtii madaxweyne Rayaale u jaray doorashooyinka waqtigiisa oo sidii uga maqnay dowladaha hoose taanu ka hadlaynay taasay ahayd tan kale percentage-ka 12.5ka ee degmooyinku siday u kala qaataan bay ahayd alxamdulillah wixii baa ka wada hadlay waana ka heshiiyey